koox ajaanib ah oo gaangiistar ah ayuu u soo adeegsaday dabeed siday u dilaan Dirisla Cabdi ninka lagu magacaabo degdeg. Dirisla Cabdi oo ah YouTuber caan ah oo lagu dilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shakhsiyaad caan ah ayaa ka dambeeyay dilka Dirisla Cabdi. Haddaba maxaad ka ogtahay shakhsiyaadka ka dambeeyay dilka Dirisla Cabdi? Warbixintan ayaan kugula wadaagayaa daawade. Muuqaalka la gare walaalkeen waxa uu markaas ku jira xaalad halis ah Dirisla Cabdi oo maskaxda ayaa dhiig uga furmay dhaqaatiirtu siday sheegeen. Bal waxaan idinka codsanayaa inaad u duceydaan adduunka wax listaraa aakhiro waxba lisma tiro qof walba naftiisa ayuu la baxsanayaa. Bal qaybta ducada aynu ku hormarno in Ilaahay caafiyo kulligeen aan u wada duceyno daawadayaal. Adinkoo mahadsan muuqaalkana sheer garee si dadka kale ee muslimka ah ee Soomaalida ah ay ugu duceeyaan inuu Ilaahay caafiyo Dirisla Cabdi oo caawa lagu dilay magaalada Nairobi. Dirisla Cabdi oo ah YouTuber caan ah isla markaana geyiga Soomaalida si weyn looga yaqaano ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya isagoo markaasi ka soo socdaalay dhankaasi iyo qaaradda Yurub. Maalmihii ugu dambeeyay Nairobi ayuu ku sugnaa asxaab iyo sidoo kale dhalinyaro fara badan ayuu howlo halkaas ula joogay. waxaa jirtay in shakhsiyaad markaas caan ah ay xurguf ka dhaxaysay dadka xurgufta ay ka wada dhaxaysay waxa dabcan ugu xooganaa ninka lagu magacaabo CK oo sida wararka hadda inagu soo gaarayaan la sheegay inuu isagu ka dambeeyay dilka Dirisla Cabdi oo koox gaangiistar ah oo Nairobi markaas ka howlgasho oo lacag la siiyo inuu lacag siiyay dabeedna uu dilay ninka dhalinyarada ah ee YouTuber ah markaas dadka social media caanka ka gaar ahaan dhinaca YouTube-ka ayuu markaas cuqdad markaas in muddo soo jirtay ayuu u hayay waxa uu kaga faa'iideystay sida wararku inagu soo gaarayaan socdaalada kala duwan oo ninkan Dirisla Cabdi geeska Afrika ku marayay gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya koox ajaanib ah oo gaangiistar ah ayuu u soo adeegsaday dabeed siday u dilaan Dirisla Cabdi ninka lagu magacaabo CK ayaa arintan ka dambeeyay sida ila xoogagaala ay inoo sheegeen waxaa la dhaawacay oo baangada lagu dhaawacay Dirisla Cabdi maskaxda ayaa wax ka gaareen sida dhaqaatiirta dabcan ay sheegeen oo ehelka Dirisla Cabdi oo xiriir kala duwan aynu la sameeyna ay inoo sheegeen in jugta gaartay Dirisla Cabdi ay adag tahay inuu markaas ka kaco subhanallah ilaahay caafimaad ha siiyo maadaama baangado lagu weeraray xitaa madaxii jug xoog leh sida aad dabcan daawanaysaan ka gaaray waxaana uu markaas xilliga la dilayay uu isagu markaas ku jiray howlihiisa markaas ku saabsan caweynta iyo sidoo kale tamashlaynta maadaama Nairobi oo howlo markaas shaqo u tagay nin dhalinyaro oo iska furfuran uu yahay marka ninka lagu magacaabo CK cadowtinimo intaas la eg ayaa ku jirtay dabeedna ninkan waa uu dilay waxaan la yaabanahay maadaama dad dhalinyaro la wadayahay haddana Soomaali aynu wadanahay haddana aynu hal af ku wada hadalno diinteenuna diinta islaamka ay tahay in cadowtinimo sida heerkeedu gaarsiisan yahay ninkan CK lagu magacaabo wiilkan dhalinyarada ah soo korayay inuu markaasi la beegsado aad baan uga xunnahay waana arin markaasi dhici karaysa inkastoo qadarta Rabbi ay markaasi iyadu jirto waxaan se in ka codsanayaa daawadayaal Dirisla Cabdi xaaladda uu ku sugan yahay ma ahan mid la dheelisan karo wallahi ma aha mid la dheelisan karo waana arin halis asagoo ku ah noloshiisa haddii Ilaahay cimri uu siiyo waxa suuragal ah in neerba uu ka qaado jugtan ku dhacday ee madaxa uga dhacday maadaama meel halis ah baangada ay uga dhaceen oo koox gaangiistar ah u adeegsaday ninkaasi lagu magacaabo CK waa ogeydeen dagaalka wada dhaxeeyay CK iyo Dirisle in muddo uu soo jiitamayay ugu dambeeyna waxa uu markaasi CK go'aansaday in lacag uu ku bixiyo ninkan inuu isdhaafiyo asaga dhanba maadaama uu nin xoogaa dhinaca YouTube-ka ay ku wada xifaaltamaan ay yihiin xaaladiisu caawa halis bay ku jirtaa isbitaalkii waxa weeye ku jira waxaana ay markaasi ay dadku sheegeen inuu miir daboolmay aan u duceyno muuqaalkana meel dheer aanu gaarsiino daawadayaal